iyadoo dhawaan uu magacaabay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas golihiisa wasiirada cusub ayaa waxaa golahaasi kamid ah laba xubnood oo horey madaxweynayaal u ahaan jiray maamulka Khaatumo taasoo dadka deegaanka Khaatumo ay si weyn uga soo horjeesteen. dadka ku dhaqan deegaanka Saaxdheer ee gobolka Sool ayaa kulan ay isugu yimaadeen waxa ay ugu horeyn tacsi u direen marxuum Maxamed Buraale Faarax oo kamid ahaa gudida fulinta ee loo yaqaano G11 ee maamulka Khaatumo oo dhawaan geeriyooday iyagoo sidoo kale ka hadlay isbedelada siyaasadeed ee Puntland iyo qorshayaashii laga filayay madaxweyne Gaas oo ay sheegeen in aanu la iman. dadka halkaas ka hadlayna waxa hadaladoodii kamid ahaa bismillaah alxamdulillaahi rabbil caalamiin wal caaqibatu lil muttaqiin sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. أولا إله سبحانه وتعالى إنك عبصنا مركز حتى النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكسلنا إيوه إن أينكو عن بارينه نمانكي مدحوين ياش كان نقضي مامولك خاطمه وكدبنا قاته وسيرة يرير أو وح معنا آن الهين إيا إنا وح تاقيرا أي وح كلسوني الله إن مامولك بودلان سيدا درتي دادكني مرنا من موقفكي وقاري أوها خاطمه ما كان نقنايو Cabdiweli Cali Gaas waxaan u sheegaynaa nimanka uu magacaabay inaysan hadda Khaatumo metelin Khaatumona hore looga saaray waxaan u sheegaynaa Khaatumo waxay leedahay madaxweyne waxay leedahay wasiiro waxay leedahay G11 waxaan leenahay hadduu Khaatumo wax dan kaga xidhan yahay hal xidhiidho odayaasheeda waxaan kala u sheegaynaa maamulka Puntland inuusan imaan karin goboladayada Soomaaliland way iskaga baxaysaa iyana imaan maayaan anagu goboladayada maamul baan u sameeysanay maamulkaas aan ka xisaabtamaya waxaan u sheegaynaa idaacadaha inay iska daayaan riyada beenta ay leeyihiin gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn baanu qabanana maamul baanu ka leenahay hawlaha aan u dirsanay oo noo qaban doona nimanka uu magacaabeena anana wax naga lama tigin isna waxba uma geyn kaliya nimankaas madaxweynayaal baan anagu ka dhiganay laakiin haddaanu garanayno inay wasiir ku qanacsan mar hore aanu basiin lahayn in Soomaaliya dawlad bay leedahay de laba maamul goboleed baan muqdishona waa laga wada xukmaa de Cabdiweli meel aan xamar ahayn ku wada hadlimayno waxaan leenahay Cabdiweli si wanaagsan xamar iskugu nimaadno inaga aan isnicin marka sida daraadeed mid waa tacsi waa ninka mas'uulka Maxamed Buraale Faarax ninka mas'uulka ee G11 kana ku jiray ninka tacsidiisa waan iskugu nimi waa tacsiyeena dal iyo dibad meel kasto aanu joogno hadaan nahay dadweynaha reer Khaatumo ninka tacsidiisa aanu diranaa taas waa qodobka labaad waxa weeye waxaanu cambaareynaa madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaanu ku cambaareynaa Cabdiweli inuu dhabarkooda fadhiyo oo cadeystay mar hadduu Axmed Karaash iyo magacaabay qodobna waa qodobka saddexaad waxa weeye dadweynaha reer Khaatumo dal iyo dibad meeshu joogaba waanu salaamana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas sababtoo ah anagoo u arkaynay inuu isbedel keenayo nin cilmi leh uu yahay nin xilal waaweyn dalka ka soo qabtay uu yahay nin Soomaaliya uu yahay oo aanu jecelayn in uu keeno maamulkii hore wax ka bedelan sababtoo ah waxa uu aad iyo aad ugu dhawaaqay markuu ololaha ku jiray inuu keeni doono isbedelkaasna uusan ka muuqan waad moodo inuu wadadii hore raacay ee raadkii hore ee kuwii hore wadadoodii ay mareen waxaanuna filaynay inuu keeni doono darisnimo wanaag maamulka Puntland iyo Khaatumo oo ah dad wada dhashay oo darisa baan waxaanu filaynay inuu isagu u keenayo inay noqdaan laba maamul oo is ixtiraama oo daris noqda oo wada hadla oo nabadgelyada iyo horumarka ka wada hadla meeshii aanu taa ka filaynay waxa ka soo baxday ka daro dibi dhal waxaana keentay in uu dadkii Khaatumo markay waxba ka tari waayeen xilka laga qaaday Cabdiqani Ismaaciil Goox Royal TV Laascaanood.